beri baa waxaa jiray jiir yaroo maskiin ahaayoo fulay ahaa. wax walba uu ka baqan jiray, xitaa kaneecada haddii ay soo ag fadhiisato uu ka baxsan jiray oo uu ka dhuuman jiray. xitaa geedka caleemihiisu haddii ay soo daataan uu ka baxsan jiray oo hoggiisa yaree geedka ku dhex yaallay buu ku dhuuman jiray. xayawaanaduna way ku soo ururi jireen oo waxay ku odhan jireen, waxaad tahay fulay, waxaad tahay fulay, waxaad tahay fulay. haddii aanad baqayn oo aanay cabsi kugu jirin, maad bannaanka u soo baxdid oo nala ciyaartid oo nala joogtid. kadibna maalintii dambe ayuu jiirkii yaraa wadna isku yeelo bannaanku u soo baxay oo uu socdayo. isagoo iska socda oo iska socda oo iska socda ayuu libaaxii boqorkii kaynta oo meel hurda ayuu u tegey. kadibna calooshiisuu dul korayo uu ku dul boodboodo uu ku dul ciyaaray. xayawaanadii kalena aad bay u naxsanaayeen oo waxay islahaayeen, jiirkii yaraaye maskiinka ahaayee aad soo galaafateen eed bannaanka u soo saarteen wataa maanta la cunay. libaaxii oo boqorkii kaynta ahaa buu afka la galay oo wakaa maanta la cunay. kadibna libaaxii baa ku soo baraarugay jiirkii yaraayoo ku dul ciyaaraya. kadibna intuu aayar kacay buu iska soo tuuray jiirkii yaraa, wuxuuna ku yidhi, miyaanad arkayn inaad boqorkii kaynta ku dul ciyaaraysid? waxaan halkan yaalaa miyaanay ahayn lafaha xayawaanadii kale ee aan cunay? miyaanad ka baqayn in adigana lafahaaga halkan la dhigo oo aan maanta cunto kaa dhigtoon kugu casheeyo? jiirkii yaraa wuxuu yidhi, maya kaama baqayo. jiirkii yaraa wuxuu yidhi, maya kaama baqayo. xayawaanadii baa igu yidhi, waxaad tahay fulay, waxaad tahay fulay. aniguna waxaan is eegayay inaan ahay fulay iyo in kale. markaa waxaan kuugu yimid, waxaad ahayd boqorkii kaynta oo laga baqi jiray. markaa haddii aan adiga kaa baqi waayo, xayawaanada kale waxay ogaanayaan inaanan fulay ahayn. iska kay sii daahay cunine. maalin baan kuu abaalgudi doonaaye. kadibna libaaxii uu iska sii daayay jiirkii yaraayo wuxuu ku yidhi, waxba ii abaalgudi mayside, abaalkaagana iska hayso, orodoo iska tagoo gurigaagii ku noqo. maalin dambe yaanan ku arkin oon halkan kugu arkin. haddii kale waan ku cunayaa oo waan ku cunayaa gebigaagaba lafahaagaan ka soo saarayaa. libaaxiioo maalin maalmaha ka mida meel iska maraya ayaa shabaq ama dabin loo dhigay ku dhacay. kadibna shabaqii baa gebigiisiiba qaaday oo meel ku xidhay. xayawaanadii oo dhan baa iskugu soo ururay oo yidhi, boqorkii kayntaa ku dhacay shabag, boqorkii kayntaa ku dhacay shabag. way ka baqayeenoo umay dhowaan karin. laakiin jiirkii yaraa wax cabsiya kumay jirin oo kamuu baqayn, waayo waa saaxiib jiirka iyo libaaxu oo waa kii maalintii iska sii daayay iska cafiyey. isaguna maantuu caawinayaayo wuxuu doonayaa inuu maanta caawiyo. kadibna jiirkii yaraa wuxuu googooyey shabaqii ama shabagii buu jarjaray oo cunay. kabacdina libaaxii baa dhulka ku soo dhacay. gurigii libaaxa ayay u soo carareen. kadibna libaaxii baa u abaalnaqay oo ku yidhi, jiirkii yaraa, maan moodin inaad caawinaysid maalin maalmaha ka mida, balse maanta ayaan arkay. waan kaaga mahad celinayaa, aad baad u mahadsan tahay. kadibna jiirkii yaraa baa qoslay. libaaxiiyo jiirkiina way wada qosleen. xayawaanadii kalena way ku soo urureen. libaaxii wuxuu yidhi, cidna cuni maaye iska kaalaya waan idin daynayaay.